culimada Soomaaliyeed ayaa ka hortimid xeerka jinsiga ee horyaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dr. Shaabo Bakar Xasan Maalim oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwada ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in Qur'aanka Kariimka ah uu yahay dastuur dhameystiran dalka Soomaaliya lagu maamulo, waxaana uu sheegay inay ka soo horjeesanayaan wax kasta oo kitaabka Qur'aanka ka hor imaanaya. isagoo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ku ammaanay qaabkay uga soo horjeesteen xeerkan jinsiga oo baarlamaanka la hor keenay. أستاذ عوكا أرتاس رمهانتي إلهي وحوليه أفحكم الجاهلية يبغون يعني dadku ma waxa ay doonayaan xukunkii jaahiliyada wixii islaamka ka soo hormaray islaamka wixii ka soo haray ilaahay wuxuu ku tilmaamay xukum jaahili ah afa xukm aljaahiliyati yabghun dadku ma waxay doonayaan xukunkii jaahiliyada laga soo tagay in dib loogu laabto dadka kitaabkan ilaahay ayaa dastuur u ah dadka muslimiinta ah isaga dhaqan u ah dhaqaalahooda noloshooda siyaasadooda isaga la rabaa in lagu dabaqo marka waxyaalahan hadda baarlamaanka daaqada laga soo gelinayo mar walbaba waxa lagu baroweynayaa qiiradooda iyo damiirkoodu inuu nool yahay diintoodu inay ku nooshahay iyo in damiirkooda iyo diintoodu ay dhimatay ayaa lagu baroweynayaa sidaas awgeed waxaan shakhsiyan runtii aan aad ugu bogaadinahay dadka mas'uuliyiinta baarlamaanka qaybo kamida oo ka dhiidhiyay oo ka xanaaqay oo ka carooday in islaamka la dhaawaco anshaxa wanaagsan iyo dhaqanka Soomaaliyeed in la dhaawaco dadka ka dhiidhiyay oo mas'uuliyiinta ah waan u tahniyadeynaa waxaan leenahay Allah idin barakeeyo hore u socda sida u difaaca sharafta diinta iyo dalka iyo ummadiina sidaas u difaaca waxa kale oo aan runtii baaq u diraynaa baarlamaan kale iyaguna iman doona ha ka digtoonaadaan wax islaamka khilaafsan oo sharafta muslimiinta iyo cirdiga muslimiinta meel uga dhacaya yeysan ku talaabsanin taariikhdu waa maguuraan waa qurmi doonta taariikhdu buug madow ilaahay agtiisana ha uga qurminina muslimiinta dhexdoodana ha uga qurminina warwarigiin ma aragteen dad baarlamaan gaala ah qof inta ka dhex istaagay yiri kitaabkan muslimka ah kitaabkan yaani quraanka ah ee muslimiintu ay ku dhaqmaan nooga dhiga dastuur ma la dhihi karaa aqalka cadi Mareykanka inta laga istaago qofkaasi ishiisa dambe qorax ma arkayso war sidee adinku damiirkiina u dhintay oo diintiina ay u dhimatay oo akhlaaqdiina ay u dhimatay marka aad inta gaal wax ka soo koobiyeysan baarlamaan inta ka dhex istaagtaan wadan muslimiina ku dhex yaala oo dad muslimiinuhu ay iska leeyihiin inaad tiraahaan kana noo sharci ah waa damiir xumo arrimaha noocaas oo kale laga digtoonaado waana cambaaraynaynaa waana u bogaadinaynaa dhinaca kale magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay kulan looga soo horjeedo xeerka jinsiga kulankan oo ay soo abaabuleen culimada Soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada kulankaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee golaha sare ee culimada Soomaaliyeed Sheekh Aadan Sugow Suufiyare waxaana uu faahfaahin ka bixiyay kulankaasi isagoo ku micneeyay ujeedka kulanka inuu ahaa difaaca diinteena suuban ee islaamka oo dhammaantoodna ku salaysnaa difaaca diinteena islaamka iyo masaalixda ummadda in la ilaaliyo waa labada qodob ay ku saabsanayeen haddii ay noqon lahayd kufsiga laga hadlay noocu raba ha noqdo dhibaatooyinka ah iyo haddii ay noqon lahayd xeerka foolxumada badan ee diinla dirirka ah ee diin la'aanta ah culummadu ay ku tilmaameen baabi'inta jinsiga ay ku tilmaameen in dalkeenna iyo dadkeenna laga difaaco madaxdii baarlamaanka Soomaaliyeed ee arinta horseedayna aan ku taageerno shirka ujeedadiisu intaas ay ahayd Sheekh Cabduqaadir Soomow afhayeenka guud ee golaha culimada Soomaaliyeed oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa mahadcelin balaaran u jeediyay guddoonka baarlamaanka waxaana uu sheegay in guddoonku uu difaacay sharaftii ummadda Soomaaliyeed taasina ay uga mahadcelinayaan cagsi kaleetood maanta oo guddoonka baarlamaanku sameeyay in xeerkii jinsiga ee ka hor imaanaya shariicadeena islaamka ee qaymada ah ee ilaahay uu soo dejiyay bani'aadanka dhamaantiisba inuu ku noolaado si sharaf ah ku noolaado oo kitaabkii quraanka kariimka ee munazalka ilaahay nagu karameeyay oo sharafteena uu ku suganta sida aayadda quraanku noo sheegay si Allah dhamarayo toos uga hor imaanayay in ay diidaan
aad baan guddoonka baarlamaanka ugu ammaanaynaa uguna mahadcelinaynaa uguna bogaadinaynaa waxaanu leenahay waxaad qaadateen kaalin geesinimo leh waxaad difaacdeen sharaf iyo diin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka akhlaaqda ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen dhammaan iyo inta inku mabda ah ee baarlamaanka ah dhammaantiin waxaad leenahay jazaakumullahu anna wa an islaami khayran buuq badan ayaa ka dhashay xeerka jinsiga oo horyaala baarlamaanka federaalka Soomaaliya xeerkaas oo lagu sheegay in si cad uga hor imaanaya diinteena suuban ee islaamka xasan maxamed samatar cawke warbaahinta caalamiga ah hoyga diinta muqdisho.